waxaan arkay ninkii aan u doonanaa oo dhunkanaya walaashay. Laakiin intii aan caroon lahaa si farxad leh ayaan u dhoola cadeeyay. Hitaa waan u cararay si aan ugu biiro, laakiin walaashay ayaa si nacayb leh iiga laaday. Madaxayga ayaa dhulka ku dhacay. Si lama filaan ah, darbaaxadaas waxay igu soo celisay xusuustaydii oo dhan. Isla markaas wax kasta ayaan xusuustay. Ninkii aan u doonanaa iyo walaashay ayaa hore isugu kaashaday inay iwaalaan si ay hantidayda u dhacaan. Si aan u kashifo shirqoolkooda, waxaan go'aansaday inaan sii jilaayo qof doqon ah. Arooskii ayaan horay u sii waday. Dadka oo dhan ayaa igu qoslayay foolxumadayda awgeed, laakiin islaan waayeel ah ayaa ii hiilisay. Walaashay ayaa isku dayday inay i bahdisho, waxayna ii dhiibtay nacnac. Laakiin waxaan ku idhi, ma rabo nacnac, waxaan rabaa inaan arko idinkoo isdhunkanaya. Ninkii aan u doonanaa ayaa ii soo cararay isagoo leh waxba ha hadlin, laakiin waxaan shaashada ka shiday muuqaalkoodii iyagoo isdhunkanaya. Dadkii meesha joogay oo dhan ayaa naxay, laakiin islaantii waayeelka ahayd aad ayay u faraxday, waxayna sheegtay inay u yeedhayso wiil ay ayeeyo u tahay. Wiilkaas wuxuu ka shaqaynayay goob dhisme ah. Markii uu wicitaanka ayeeydiis helayna, wuxuu u soo degdegay goobtii arooska. Ninkii aan u doonanaa markii uu arkay waxaan sameeyey ayuu aad u carooday. Markii uu isku dayay inuu i dharbaaxo, aniga ka hormaray. Kadibna dhalo khamri ah ayaan madaxa kaga jabiyay. Ninkii halkaas ayuu ku miyir beelay, aabahayna isbitaalka ayuu u diray. Walaashay ayaa si jees-jees ah ii weydiisay, yaa maanta ku guursanaya? Markaas ayaan dadka hortooda kaga dhawaaqay, qof kasta oo maanta i guursada wuxuu helayaa abaalmarin dhan $100,000. Islaantii waayeelka ahayd ayaa isla markiiba gacanta u qaaday wiilkeeda. Katunidii ayaan qaatay, waxaanan u lugeeyey dhankii ninka, waxaanan ka codsaday inuu farta igu geliyo, laakiin wuu diiday. Waxaa soo baxday in isagoo yar ay wiilal xoogayeen, balse gabadh yar ay ka badbaadisay iyadoo nafteeda khatar gelisay. Markii uu soo kacay, wuxuu ayeeydiis u ballan qaaday inuu guursan doono gabadhii badbaadisay marka uu weynaado. Laakiin ma uusan ogeyn inaan anigu ahay gabadhii uu muddada dheer raadinayay. Isagoo ayeeydiis ka cabsanaya ayuu aqbalay guurka. Wuxuu iska dhigay nin faqiir ah oo dhismaha ka shaqeeya si uu ii tijaabiyo, wuxuuna i weydiiyey haddii aan weli rabo. Anigoo aan ka labalabayn ayaan aqbalay, waxaanan u kaxeeyey goobtii lagu xarayay guurka si aan u saxiixno waraaqaha. Markii aan helnay shahaadada guurka, waxaan u dhiibay lambarkayga. Markii aan dhabarka u rogay, wuxuu arkay silsiladii luquntayda ku jirtay, wuxuuna gartay inaan ahay gabadhii uu raadinayay.